marka adiga inta ka doonay taasay ina waan qabaylaho wani of course soo dhammaatay bixin malaad كنت جرشة تمجر لطمة تبنها أنا يروح أقباب إسا بسطة صلي عيني في الميديا okay أنا قال لي عيني أدلق معيني waa codod iyo sidoo kale muuqaalo sir ah kaas oo laga duubay hadaladii ay qadka taleefanka isku dhaafsadeen Safiya Tusmo iyo sidoo kale Cabdi Ciise Cajuun hadaba cododkan ayaa waxa ay dibadda keeneen xog sir ah taas oo ahayd in labadan shakhsi ay labadooduba qiranayaan in ay isla tuman jireen Safiyo waxa ay doonaysaa inuu ceeb qariyo taas uu dhaho waan isqabnay halka isaguna uu doonayay inay ka tirtirmato ceebta ah inuu isagu sawiradan faafiyay hadaba daawadayaal cododkan iyo muuqaaladan oo faahfaahsan ayaan kula wadaagayaa hase yeeshee inta aan u guda galin faldan marka hore muuqaalka la egaray si uu faafo una gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo janalka subscribe dhahanaya ganbaleelkana u furanaya hadaba daawadayaal jahwareer badan kadib waraysiga xalay lala yeeshay Cabdi Ciise Cajuun kaas uu ku sheegay gabadhan inuusan isqabin waxa markii ugu horreeyay soo baxaya cod sir ah oo arrintan ku aadan labadan qof oo qadka taleefanka ku sheekaysanaya kuwaas oo soo bandhigaya xogta sirta ay labadan shakhsi ka dhaxaydo hadaba waa kan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya haddaanad ka sameeyay rabin inaad sameeyay iska daawna maanta waayo Safiya ma beentii habla yar sheegana baadna sii saxday marka waayo uu macaan ilaa waxaan ku lahaa anigu ka hadalay ugu lahayd waan ka hadlaya waxaan hal shaqo ku lahayn beehde haddana ma walaal hadafkaagii horun bad sii xoojisay uu macaan Safiya so what do you want me to do marka ya waxaan rabtaa inaan sameeyo adigu sidan maxalkaad u arkaysaa miyaa walaal bas soo sheeg adigu idan aniga wad la hadashay intaan hadline hadalkaygu inuu sidee noqdaa baad rabtay dee anigu qabis baan ku diray walaala iyo inaynu caynkan iyo maxaynu beenta ku falaynaa waxaan jirin aynu u sheegnaa wala macaan clipkan inayna shaqo ku lahayn waxaynu inagu ognahay waxaan anigu ogahay waxa aan mid yaani inaana shaqo ku lahayn adiguna waad ogeed ilaahay iyo mudisna way ogeed inaad waxa ka hadasho ma ujeedayno hayda arrimahan kale uu maxayna si dhexgeliyo macaan su'aasha la weydiiyay baan ka jawaabay laakiin adigu waan ku ogahay waad iga faanisay markii hore wada soconayba imkana ceeb ay kugu tahay lagu dhaahdo tusmo nolol soo wadaagay ama qabay baa ka dhaadhaxsan demaya raganimadaada iyo aniga waxa sigama dhaadhaxsan aynu saani wada hor yani waxay ficneed inaad tiraahid gabadhan waan qabay waana kala tagnay imkana waan kala dhamaanay oo muddo faraha naga qaadan anigana wax weyn bay ahayd ana wax weyn laakiin you don't want it sheekadii halkaas ay ku xidhan malahay walaal macaan marka adiga inta ka doonay taasay ina waan qabaylaho wani of course soo dhammaatay bixin malahay ما أنا جاي سكت مكان أنا بقول له وان قبائل ما يا كنت جرشة تمجر لطمة تبنها أنا يروح أقباب إسا بسطة صلي عيني في الميديا أوكي أنا قال لي عيني أدلق معيني صونا معا ما أنت قرأتي أو قوبة هذه ما أنت عيد تنج بان كبحي وحين نحمري وحين حدني يالينا وذوقتهاي والله المعان إما كبا وحويا هذا أنا بسمين كريم فرح قاد خاصة بعليك ومالك هذا دون تصوح هذا لو ما نسلت مدين هيدا هذه كله وحويا هون معان ده وحن قرن كرو كلام جرت تاسد السلام يا هون معان السلام ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeeda ceebeeyay oo maradii ka qaaday arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san hore kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyo adiga hore kugu sheegay waa ka madax banaanay oo waana ceeb aniga iyada nagu dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya relationship naga dhaxeeyay sheeko bisayna gabadheedii ahayd relationship sheeko naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto hadii waxinta ka duwan oo la hayaa jirtana cidii haysaa soo madhubto diyaar baan waa marka waxa leedahay wax qabiso oo meesha jirta ma jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallahi kulli guurku waa wax weyn Safiina gabadh caana marka la isbursanayna wax qarsoon maaha marka la isfurayna wax qarsoon maaha marka hadda tusaalahan walaashay Safiya san anu iyada ka maqlay ama kalibadan daawaday 3 jeer bay hadashay marka koobaad ee ay yani arrinkan laga tabsaday sheegay waxay sheegtay in relationship yeelan karto qof relationship ka dhaxaysa jirto oo relationship naga dhaxeeya jiro marka labaad wareysiga ay shiina culeysay waxay sheegtay in dad isqabay oo isjecel nahay dadkana naga dhax baxaan marka saddexaadna waxay sheegtay in furiin dalbatay
kiina ay ku guuleystay la furay waa isla muddo 5 cisho gudahooda waa saddex hadal oo muddo dhaweyn sax wala la marka hadda muhiimadda markaan ku soo ururiyo aniga iyo inta wax qabiso naga dhaxeeyo oo meel loo yaala habeeraatay ma jiro waxaad waxa jirtay muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaas aan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada su'aasha anigu hadalka iyada kamaan maqal laakiin waxay cid kale yiraahdeen ama qof YouTube yiri ama qof kale live ka hadlaya yiri aniga waxay qosay maaha kaliya waxaan diyaar ahay wixii aan walaashay ka maqal kaliya inaan ka jawaabo marka waxaan sin wax iyada ka soo baxay maaha waxaan hadda anigu jawaabo wayna maaha because waxay tiri maaha خلاص waxaad waxa jirtay inaad baxsatay sida dadku sheegeen Itoobiya u baxsatay arinta baxsiga maxaa ka jira horta sheekadan waxay socotaa muddo 6 cisho anna sida sagalay adigu wogtahay waxaan ka maqnay magaalada waxaan ka maqnaa 22 cisho marka falku goortu dhacay iyo goorta lagu tagay horta wax isu dhooba ma yahayn marka wuxuu maana arkaa in hadal meel waayay haddaan baxsaday hadda waan inoo soo noqday cidii doonaysa hay timaadada waxa jirta lacag $20,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas saan horeba kuugu sheegay waxaan ka soo fariistay ama diyaar wahay wixii aan Safiya ka maqlay inaan ka jawaabo taas wali carabkeeda kama hayo ayaa baraha bulshada niga habaarayay oo in badan habaartamay oo ma garanaysaa waxaan horta Ilaahay magan ugahay inaan ummadda Soomaaliyeed habaarkeeda aanu qasaarin mid Ilaahay ka aqbalo oo noqdo hadaad falkii geysatay hadii marka hadalka waan ku soo wadaayay hadii waxaan anigu sameeyay uu yahay ummadda Soomaaliyeed ee halka milyan ku dhaw habaartamisay waxaan habeenka caawa jecel in Ilaahay ka aqbalo waxaan geystay haduu anigu yahay inaan Ilaahay iga harin ummadda Soomaaliyeed habaarkoodaasi igu dhaco hadii kalena cid geysatay uu ku dhaco sidaad u aragtaa in bariyahan dambe waxa soo badanaya in gabdhaha la ceebeeyo adigoo kaba midaba deemka eedeysanayaashii inkastoo halkan iska difaacday sidaad u aragtaa qof gabadh ah oo waliba ama caan ha noqoto ama yey noqonin in la ceebeeyo ama la handado oo la blackmail gareeyo loogu hanjabo waxaasan ka hayaa iyo waxaasan kugu sameyn doona waxaan arkaa wax aad iyo aad u falxun وحرانا دقن كإسلام كبحسن دين الإسلام كبحسن دقن كسومالي كبحسن يعني أو واحدة لتلمام واحد لقول تلمام كرعان وشريمة لا أنا جوا أنا كحمانة أي تهاي haddaba sida caddabadan shakhsi waxa ay qiranayaan in si sharci darro ay isugu galmoon jireen subxaanallah haddaba waa kan Cabdi Ciise oo afkiisa ka qiraya in aysan isqabin labadooduna ay kala madax bannaan yihiin waraysigii lala yeeshay xalay bal aynu isla daawano isku soo wada duub arrintan ayaa waxa ay daha ka qaadaysaa xog iyo sidoo kale macluumaad muddo dheer qarsanaa haddaba waxyaabaha ka soo kordhay shakhsiyaadkan ku aadan waxaan idinla wadaagi doonaa codod iyo sidoo kale muuqaalo sira oo kale oo nagu soo wajahan ha ilaabin inaad janaalka subscribe dhahato gambaleelkana aad u furato mahadsanidin